maxaa ka soo kordhay weerarkii Israa'iil ee ku qaaday Xisbullah subaxnimada saaka ah? Wararkii ugu dambeeyay ayaan ku hayaa. Fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar channelka, sidoo kalena muuqaalkana share garay oo saaxiibadaada la wadaag. Ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa sheegay in hogaamiye sare lagu dilay duqeyn ka dhacday dalkaasi. Ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa ku dhawaaqay inuu dhintay mid ka mid ah taliyayaasha sare ee ururkaasi xilli Israa'iil duqeymo xooggan ku hayso dalkaasi. Xisbullah ayaa xaqiijisay in Ibraahim Mohamed Qubaisi lagu dilay qoraal uu soo dhigay bartiisa Telegramka saacado kadib markii militariga Israa'iil ay sheegeen in lagu cirib tiray duqeyn cirka ah oo ka dhacday Gubeheeri ee duleedka koonfureed ee Beirut. Saraakiisha Israa'iil ayaa sheegay in Qubaisi oo sidoo kale loo yaqaan Xaj Abu Muusa uu hogaaminayay tiro ka mid ah gantaalada Xisbullah, wuxuuna mas'uul ka ahaa weerar 2,000 oo askari oo Israa'iil ah lagu dilay laguna afduubtay. Wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa sheegtay in duqeynta Israa'iil ay ku dhinteen 6 qof ayna ku dhaawacmeen 15 kale. Weerarka Israa'iil tan iyo Isniintii ayaa waxa ay ku dhinteen ugu yaraan 569 qof halka ay ku dhaawacmeen tir gaaraysa 835 qofood oo kale. Sida ay sheegeen mas'uuliyiinta caafimaadka ee dalka Lubnaan, waa jawi aad u kacsan, dad badan ayaa aad ugu walacsan xaaladda Bariga Dhexe, ayuu yiri Olivier Madsen oo ka tirsan TV-ga Al Jazeera, kaasi oo ku sugan ama ka soo waramayay Beirut. Sidoo kale waxaad haysataa 10,000 oo reer Lubnaan ah oo ka soo cararaya koonfurta una socda waqooyi, halka Beirut kordhinta dagaalka ka socda xadka Israa'iil iyo Lubnaan oo ay ka dhaceen iska horimaadyo hoose tan iyo markii Israa'iil ay bilowday dagaalka ay ku hayso Gaza bishii Oktoobar, ayaa daba socota weeraro ballaaran oo toddobaadkii hore lagu qaaday bogag iyo hadallo lagu bartilmaameedsaday xubnaha Xisbullah ee Lubnaan. Xisbullah ayaa boqolaal gantaalo ah ku riday Israa'iil maalmihii la soo dhaafay, kuwaasi oo intooda badani ay qabteen difaacyada ka hortaga gantaalada ee Israa'iil leedahay. Kooxda Lubnaan ayaa ilaa 300 oo gantaal ku dhufatay Israa'iil Talaadadii, waxaana ku dhaawacmay 6 qof oo rayid ah iyo askar sida uu sheegay militariga Israa'iil. Ololaha duqeymaha Israa'iil ayaa qasbay kumanaan qof inay ka qaxaan koonfurta Lubnaan, waxayna sare u qaaday cabsida laga qabo colaad cusub oo ka dhalata Bariga Dhexe xilli dagaalka Israa'iil ee Gaza uu ku dhow yahay sanad guuro. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maanta oo Arbaco ah lagu wadaa in ay ka kulmaan ama ay ka wada hadlaan colaadda sii xumaanaysa. Talaadadii la soo dhaafay, xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa ka digay in Lubnaan ay qarka u saaran tahay inay burburto ama dagaalada ay halkaasi ka sii socdaan. Dhammaanteen waa inaan ka naxnaa kororka Lubnaan ayaa qarka u saaran. Dadka Lubnaan sida Israa'iil iyo dadka adduunku ma awoodaan inay Lubnaan noqoto Gaza oo kale, ayuu Guterres u sheegay hogaamiyaasha caalamka xilli ay ka qaybgalayeen shirka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.